Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo ilmaha ka saacida in miisaankooda ziyaado ama ay ku cayilaan waxyaalaha ka saacida ayaan muuqaalka kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada walow ay jireen muuqaalo hore oo 2 iyo 3 meelahaas inay yihiin aan u maleynayo aan kaga soo hadalnay haddana insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan mid kale aan maanta ku darno ka hadlayo ilmaha wax miisaankooda ziyaadiyo ama ilmaha cayilaya caatada ah haddii ay tahay marka kugu horeyso ana soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadan usii share gareen soo dhawaada mar labaad haddii cunugaada uu ku jiro xilliga nasnuuga waxa ugu fiican ilmaha ay ku cayilaan waa caanaha naaska hooyada waa waxa ugu muhiimsan uguna fiican ee number 1 ah ay ku cayilaan ilmaha waa caanaha naaska hooyada waxa wanaagsan hooyada inay ayada cunto fiican qaadata wax badan dareer ahna ay cabtaa si naaskeeda caano fiican u soo galaan oo cunugiina korinshihiisa u hagaaga uguna cayilaa marka laga soo tago cuntooyinka bahalkina caanaha naaska waxaa ku xigo sida fawaakihda oo kale oo ilmaha ay ku cayilayaan oo kale khudaarta ah fawaakihda sida waxaa kamid ah oo kale mooska maangaha oo kale cambaha uu ku mid yahay waxyaalaha ilmaha ay ku cayilaan faroolaha kale mishmishka qofkii heli karo kale meel laga heli karo qofkii joogo kale ilmaha way ku cayilaan zeytuunka oo kale ilmaha way ku cayilaan waxyaalaha ilmaha ku cayilaan waxaa waaye wax walba faakiha walba ee dhadhankeeda markaa dhimsaan macaan yahay ilmaha waxay ka saacidaa inay cayilaan lianna waxaa laga helaa socraad xaraariya waxa la dhaho wax ilmaha ka saacida inay cayilaan ayaa ku jiro faakiha walba oo dhadhankeeda markaa dhimsa aragta inay macaan tahay ugu rono ilmaha lianna waxay ka saacidaa inay cayilaan hadda sida faroolaha kale dhadhankeeda macaan iyo dhanaan isku darsan waaye saytuunka oo kale cambaha oo kale mooska oo kale maxaa la yiraahdaa canabka oo kale ilmaha way ku cayilaan lianna macaan uu leeyahay sabiibka oo kale ilmaha way ku cayilaan asagana macaan uu leeyahay wax walba oo faakiha ah oo markaa dhimsa aragta inay macaan leeyihiin waxay ilmaha ka saacidaa iyo dadka waaweynba inay cayilaan waxa wanaagsan inay hooyada ugu roonaato ee siisaan waxyaalaha kale ee ilmaha ka saacida inay cayilaan waxaa kamid ah ukunta qayb weyn ka qaadataa inay ilmaha ku cayilaan waa haddii hooyada ay siisaa si saxan u siisaa maahan ukunta inay sideeda ku siisaa waxa qurux badan inay cunuga ka karisaa hore ugu soo hadalna muuqaal ukunta kaga hadlayni hooyada waa inay ka karisaa waxa kale ee ilmaha ay ku cayili karaan waxa waaye waxyaalaha miraha ah qaleelka ah ayagana ilmaha way ku cayilaan sida waxaa kamid ah kala looska sisinta xulbadoo kale ayadana way ku cayilaan dhammaan wixii aragtid inay miro yihiin haddana ay qalalan yihiin ilmaha waxay ka saacidaa 100% ayadana inay cayilaan haddaad doonto waxaad ugu dari kartaa sisinta iyo xulbadoo kale intaas ugu darto wax macmacaan ha ugu dartid aa cunuga siin kartaa uu ku cayilaa oo waliba markii sisinta iyo xulbada inta la isku riiqo ayadoo riiqan oo biyana aan lagu darin oo biyo caadi u lahayn laga dhiganin mirihina aysan ahayn oo kale oo la riiqo wax yar oo dhicaan loo sameeyaa haddii caano ay ugu dari kartid oo kale caano kula riiqdaah oo kale wax macmacaan ah cunuga dhadhankiisa jecleysii karo kale hadaa moos ugu dari karto qudaar waxyaalo macmacaan ah cunuga haddii cunug sanadka weyn yahay oo kale malab ugu dartaa si cunugii dhadhankeeda uu u jeclaada ayadana 100% wax sida ugu fudud ilmaha ay ugu cayilaan sisinta iyo xulbada marka la isku riiqo moos iyo caano iyo malab iyo haddii cunug sanadka weyn yahay waa hadduu sanadka yar yahayna qudaar iyo wax kale ugu dari karta laakiin hadduu sanadka weyn yahay malab ugu dari kartaa insha Allah waxaan u badan tahay cunugaas 2 isbuuc ugu daytay inaad isbedel ka dareentid haddii Ilaahay yiraahdo waxyaalaha kale ilmaha ay ku cayilaan waxaa kamid ah hilibka kale sida hilibka gaduudan hilibka xoolaha iyagana ilmaha way ku cayilaan doorada kale maasha Allah si fiican isbedel fiican ka dareemay cunuga oo ayagana way ku cayilaan ilmaha waxa kale ee ilmaha ay ku cayili karaan oo ka saacida ilmaha inay cayilaan waxaa kamid ah caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida subaga caanaha laga soo saaraa yogurtka kale asagana caanaha laga soo saaraa caanaha xoolaha caadiga ah wala xataa caanaha gasacmanka ku jira ayagana ilmaha way ku cayilaan waa caanaha iyo wixii caanaha laga soo saaro ilmaha way ku cayilaan oo cunuga wuxuu ka dareemaysaa miisaan iyo isbedel fiican
waxaa kale oo ugu muhiimsan hooyada haddii intaas aan soo sheegnay ay siisaa oo kale cunuga waa in hooyada ay u fasaxdaa ciyaarta. Cunuga hadduusan ciyaarinin uusan energy-ga badarkii aa siisay hadduusan soo gubin cunuga ma baahahay badar labaadna ma kaa cunahay. Jimicsigana waxay ilmaha ka qayb qaadanay ilmaha kale hooyooyinka badan waxay sameeyaan qadada markay taas u siiyaan liin hore ka seex. Cunugii inuu ciyaar dhan hooyada duhurkii ma ogola qadada markay ku ogaataa kuna see leedahay seexo. Cunugaas maxay u diidaa marka hadduusan cayirin xataa inuu asagu laga dhuudhuuban cunuga calool ka soo baxdo. Cunuga jaanis oo caloosha badarka ugu shabto qadada ka dhirtisay iyo biyihii caanihi asiisay 20 daqiiqo xataa maadan siin cunugii uu ku badboodo ku ciyaaro hore ka seexa dhahdeen. Cunugii waxay u badan tahay marka calooshiisa inay iska fido cunuga ku caatay oo dhuudhuuban xoolo caloosha ka soo horeyso. Waxa qurux badan hooyada markay cunuga kala qada siisaa inaysan hore ka seexin oo kale haddii ilmaha aysan iskuuli dugsi midna ku aadin guri joog yihiin oo kale waana 5 saac bar qadadooda siisaa 6 saac bar marka la gaarin aa seexisaa. Haddii inay ku nasan arabtid saacad ayagoo cuntadii cunugii uu cunay ka soo wareegtay inuu seexda ayaa fiican. Ma ahan marka badarkii biyihii ku ogaatid in hore sarati ka saartid oo hore ka seexda aad ahayd ma fiicno. Xataa ilmaha kaliya ma ahan oo xataa dadka waaweyn waxa qurux badan qofka markuu cuntada cuno inuu isla markii hore uusan sararta ka tagin uu socod soo sameeyaa si cuntadii u kala degto jirkiisa u gashaa calooshiisa cuntadii dul saaran ka baxdaa. Haddii cunuga cuntada soo cun hore seexa aad ka dhahdid horta raaxa leh ma helayo cunugii. hurdo raaxa leh ma helayo cunugii hurdo fiican oo jirkiisa uu ku nasto asagan raaxa ku dareemo ma helayo. Marka waxa qurux badan hooyada in ilmaha ay ciyaar u fasaxdaa markay cuntada cunaan si cunuga u soo baahdo haddana hadhuuti mid kale oo kaaga cuno. Mida kale hooyada markay rabto in cunugooda u cayilo waxa qurux badan 3 waqti waaweynka 3 waqti oo kale oo yar yar ah inay daba joogto quraacda marka la siiyo kale cunugii subaxii markuu soo kaco 4 saac oo kale inaa siisidoo kale waxyaalo qudaar ah 6 saac markuu qaday 9 saac oo ka soo kaco inaa qudaar siisid markuu caawa ku casheeyo kale 12 saac cashada siisid. Haddii cunug 2 saac oo kale u seexahayo kale 12 iyo saac 1 saac habeenimo 7 habeenimo meelaas markii la maraa wax yar oo macmacaan ah aa siisid okay waa ayadana 3 waqti waaweyn oo inay 3 waqti ama 2 waqti oo kale yar yar ah ee daba socota si cunug miisaankiisa isbedel ugu dareentid. inshallah intaasaan kusoo gabagabeynaa haddii ay tahay markii kugu horeysaan soo booqataa subscribe oo saar gambalelkan furso fiidiyada cusub ku soo gaaraan haddaa hore nool joogtaan like noo saar saxaabta soo share gareey soo dhawaada.